daawadayaal ku soo dhawaada ciyaar xiiso leh oo ka dhici doonta garoonka Djibouti kuwaas oo ay ku kulmi doonaan labada kooxood ee kala ah xidigta cad iyo xidigta madow aan idhaahdee daawatan daawasho wacan waxaa 10ka sita Maxamed Farmaajo xidigta cadaanka weeye halka 6ka uu ka ciyaarayo Khayre 7kana waxa uu soo xidhay Abiy Ahmed halka 8dan uu ka soo xidhay Ismaaciil Cumar Geelle iyagoo ay kooxdaasi tahay koox aad u mug weyn ka dhisan dhinaca difaaca weerarka iyo dhexdaba kuwaas oo loo malayn doono inay ka badin doonaan kooxda xidigta madow ee ka soo hayaantay waqooyiga iyadoo ay loo malaynayo in kooxdani ay gebi ahaanba ka khalisi doonto kooxda mar labaad aan jaleecno kooxdan kale awoodahan waa lagaga badan yahay garoonka sababtoo ah difaaceedu aad buu u jilicsan yahay laakiin xagga weerarka lagu yara qaatay 11 waxa uu sito Muuse halka 9kan uu sito Saleebaan halka ay 4 uga ciyaarayaan kooxo ama rag aan aad u adkayn difaacooda ama cagtooda aan la isku halayn karin Allahu akbar waxa meesha ka dhacda ama inuu dib u jaleecno ciyaarta kaba dambaysteeda waxaanu sugi doonaa natiijada iyadoo haatan imika ay marayso gool iyo eber halka uu Farmaajo u dhaliyay